Fadhi dhegeystayaal qisadan astacajabka badan ayaa waxay dhacday sanadii 1925 kadib markii markab magaciisa la oran jiray Cotopaxi uu kasoo sharaacday dekeda Charleston ee gobolka Carolina koonfureed ee dalka Mareykanka. Markabkan waxaa la socday 32 qof oo ka mid ahaa kabtankii waday, waxaana markabkani waqtigaas siday shixnad dhuxusha la shitaa waxaana lagu waday inay ku xirto dekeda La Habana ee dalka Cuba kowda bisha December isla sanadkaas. waase la yaab noqotay in markabkii uusan gaarin dekedii la filayay inuu ku xirto. kowdii December ayaa markaliya magaalada Havana ee caasimada Cuba waxaa kusoo dhacay qaylandhaan ka timid markabkii Cotopaxi oo codsanayay caawimaad degdeg ah, wuxuuna sheegayay in mawjado meelay ka yimaadeen aan la aqoon ay hadba meel ula baaxaa degayaan. cimilada oo xumeyd awgeed wax gurmada waa loo fidin kari waayay waqtiga. waxa kaliya oo furnayd badmaaxayaasha ayaa ahayd inay badbaadsadaan nafahooda. waxaase kaliya xaaladda markabkan laga ogaa markii ugu wardambeysay lala hadlo ayaa ahayd in qaybaha akharanka hoose ay biyuhu soo galeen, waxaana laga baqayay in markabkani uu dego. dib dambeetana wariya wacaan raqiya ruux meelay dhigeen waa la waayay markabkii iyo badmaaxayaashii la socday intaba. waxaana lagu tiriyey in saddexagalka Bermuda uu liqay, sidaasna kiiskoodii lagu xiray laguna ilaaway ilaa laga gaaray sanadii 2015. haddaba bal maxaa dhacay? subaxnimadii 1 January 2015 ayaa saldhig military oo ku yaal magaalada Havana ay raadaradu qabteen markab aan la aqoon oo sabaynaya badweynta ku dhow dhulbadeedka dalka Cuba, waxaana markii ay isku dayeen inay khadka raadiyaha kula xiriiraan ciidamadu laga waayay wax jawaaba. abusnaan kadib dowladda Cuba ayaa go'aansatay in tallaabo laga qaado markabkan jinoolaha aamusan, waxayna u direen 3 ka mid ah maraakiibta ilaalisa xeebaha si baaritaan ay ugu soo sameeyaan. waxaana markii dambe ee la fulay la ogaaday sababaha uu jawaabi waayay, waayo markabku wuxuu ahaa mid haawanaya oo waa hore laga guuray oo isagoo daxalaystay oo jajaban oo duugoobay, laakiinse haddana ilaah amarkiisa baynayo weli soconaya, inkastoo xitaa aboorka iyo weliba milixdu ay cuntay alwaxyadii markabkan, birihiina iyo matooradii ay daxalaysteen. waxaana la waayay raqiya ruux meesha ay mareen iyo xitaa lafihii badmaaxayaashii la socday markabkan. mar dambe ayaa mas-uuliyiinta dalka Cuba waxay xaqiijiyeen in markabkani yahay markabkii la weysanaa 90 sano ka hor ee lagu magacaabi jiray Cotopaxi. waxaana markii ugu wardambeysay loo maleynayay in badweynta uu ku qaraqmay, dibna looma arag raqiya ruux wixii saarnaa. waxaase lala yaabay oo ilaa iyo iminka la garan la'yahay meesha intaay oo dhan uu ku maqnaa markabkani. waxa kale oo ilaa iyo iminka baaritaan walba oo la sameeyey la garan waayey meesha jaani cidhib ay dhigeen badmaaxayaashii la socday markabkan. waxa kale oo lala yaaban yahay in dunidan aynu ku noolnahay 75% ay baddu ku fadhido, inta badan layskaga goosho badaha caalamka. waxaa la yaab noqotay in muddo ku siban 90 sano aysan cidna arag markabkan caalamka oo dhan oo mar keliya uu soo muuqday. waxaana dadka qaar iyagu oo dorosayaan in markabkani ay haysteen quruumo kale ama jiman muddo ku siban 90 sano oo hadda uu la soo daayay. haddaba dhegeyste, haddii aad qisadan dhegeysato bal nala soo wadaag adiguna fikradaada iyo waxa aad ka qabto meesha uu ku maqnaa